soo dhawaada saaxiibayaal waa wiilkeenii sirta films ka hor inta aynan muuqaalkeena maanta u gudagelin waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim sheekadeenu waxay ku bilaabanaysaa magaalada yar ee Bikomonde ee dalka Mareykanka halkaas oo wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Thomas uu ku noolaa markii uu yaraa hooyadiis ayaa ninkeeda ku weerartay mindi iyadoo ku doodaysa inay leedahay awoodo yaab leh kadib hooyadiis waxaa loo qaaday isbitaalka dhimirka laakiin markuu Thomas weynaaday wuxuu ogaaday inuu sidoo kale dhaxal ahaan u leeyahay awoodo la mid ah sababtoo ah wuxuu arki karaa nafsadaha dadka dhintay maalin maalmaha kamida Thomas oo gurigiisa ka baxay xolo kulmay gabadh lagu magacaabo Bani taasoo u kaxaysay si ay qof u tusto Bani gabi ahaanba way aamusnayd hadda Thomas wuu iska daba galay wuxuuna la kulmay nin dariskiisa ah oo la yiraahdo Harley Anderson kaasoo ku faanayay baabuurkiisa cusub laakiin waxa yaab ka lahaa waxay ahayd in ninkaas uusan gabi ahaanba arki karin gabadha kadib markii uu qabtay Thomas gacanta Bani xaqiiqadii oo dhan ayaa soo baxday wuxuu arkay gabadha oo ruux dhaawacan oo xanuunsanaysa ma nasan doonto ilaa qofka mas'uulka ka ah dhimashadeeda la ciqaabo markaas Thomas wuxuu go'aansaday inuu Harley cashar u dhigo markii la qabtayna wuxuu isku dayay inuu baabuurka ka boodo oo uu baxsado laakiin Thomas marnaba ma daynayn si dhaqso ah Harley wuxuu galay guri ay xafladii ka socotay laakiin Thomas ayaa soo qabtay oo si toos ah ugu riixay barkada dabaasha markii ay biyaha ka soo baxeen ayuu dagaal dhex maray labadooda laakiin Thomas oo xirfad fiican u leh dagaalka ayaa tartiib uga adkaaday Harley dhanka kale haweeneydii lahayd guriga ayaa timid si ay u saarto wiilkeedina wuxuu yimid inuu eego wax socda markii Harley arkay wiilka wuxuu qorsheeyay inuu afduubto si uu u baxsado wuxuuna si toos ah ugu orday qolka wiilka laakiin sidii uu wiilka u qaban lahaa Thomas ayaa gadaal ka qabtay kadibna dhalo ubaxeed ku dhuftay hadda labadoodu mar kale ayay isfeedheen laakiin Thomas ayaa dhulka ku riday isla markiiba booliiskii ayaa meesha yimid ugu dambeyntii Harley waa la xidhay inkastoo burburkaas oo dhan dhacay taliyihii booliiska Wyatt ayaa sii daayay Thomas sababtoo ah wuxuu ahaa dadka tirada yar ee og awoodaha Thomas Wyatt ayaa markuu sii baxay u sheegay Thomas inuusan muddo dheer qarin karin sirtan ugu dambeyntii markii shaqadu dhamaatay ruuxdii Bani ayaa mar kale u timid Thomas markaana nabad ayay heshay inkastoo aysan hadli karin waxay calaamad ugu mahadcelisay Thomas kadibna hoygeedii saxda ahaa ayay aaday saacado kadib Thomas wuxuu ku soo laabanayay gurigiisa markii uu la kulmay dadka waxay xidhnaayeen labis casaan oo leh nashqada kubadda bowlinka Thomas ma arki karin wajiyadooda dhammaantoodna way soo qaadeen iyagoo caawinaad weydiisanaya laakiin si lama filaan nin qarsoodi ayaa qori la soo baxay oo dhammaantood toogtay iyadoo hal qof oo kaliya uu noolaaday kaasoo Thomas geeyay qolkiisa intii arintani socotay Thomas ayaa wadnaha xabad looga dhuftay laakiin dhab ahaantii waxaasoo dhan waxay ahaayeen aragti dhab ahaantii Thomas wuxuu la qabsaday aragtiyahan oo kale sidaa darteed uu iska indhatiri jiray subaxdii xigtayna wuxuu aaday shaqadiisa makhaayadda halkaas wuxuu kula kulmay haweeneyda ay wada shaqeeyaan ee Viola wax yar kadib saaxiibtiis Stormy ayaa iyaduna meesha timid taasoo la mid ah taliye Wyatt oo iyaduna ogeed awoodaha Thomas laga soo bilaabo yaraantoodii waxay wacd ku mareen inay weligood wada joogi doonaan maalintiisu si caadi ayay u socotay ilaa Thomas si lama filaan oo uu arkay wuxuu yaab leh oo makhaayadda soo galay magacoodu waa Bordaches dadka caadigaana ma arki karaan laakiin kuwani waxay qabsan karaan dadka oo u dili karaan si argagax leh markan bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa nin yaab leh oo xidhan suud magaciisuna yahay Fungus Bob isla markii uu makhaayadda ka baxayna wuxuustii ayaa daba galay Thomas wuxuu go'aansaday inuu ogaado waxa ay wuxuustu qorsheynayaan shaqada kadib Thomas ayaa ka soo daba baxay laakiin isla markiiba Viola ayaa u yeedhay waxayna ku tiri xalay waxaan arkay riyo aad u xun oo muuqatay mid daba waxay sheegtay inay riyada ku aragtay iyada iyo dad badan oo lagu dilay gacanta nin sniper ah dhammaantoodna waxay xidhnaayeen labis casaan oo leh nashqada kubadda bowlinka isla markii uu taas maqlay Thomas wuxuu xasuustay mala awaalkii xalay laakiin wuxuu u sheegay Viola inaysan aad u fikirin intaas kadib Thomas wuxuu sii waday dabagalkii ninkii suurka xidhnaa dhab ahaantii isagoo isticmaalaya awoodiisa wuxuu si fudud u heli karaa dadka la tamarta ka sareysa caadiga daqiiqada gudahood wuxuu arkay Fungus Bob oo ku laabanaya gurigiisa oo ku yaala meel cidla ah oo ka baxsan magaalada wax yar kadib markuu guriga ka baxay Thomas ayaa si dhuumashaha guriga ku galay oo si fiican u baaray meesha gudaha wuxuu ka dareemay tamar aad u qabow oo ka imaanaysa qol kamida isla markii uu albaabka ka gudbayna wuxuu arkay iftiin ka dhaxdhacaya gidaarka sidii irid isagoo aan fikirin Thomas ayaa gacantiisa geliyay si ay iridda u furanto wuxuuna isla markiiba bilaabay inuu raadiyo meel uu ku dhunto laakiin ilbirqsiga gudahood door wuxuusha ayaa ka soo baxay iriddaas taasoo cadeysay in gurigan yahay uun meel bannaan oo ay wuxuustu ka yimaadaan oo ay ku laabtaan markii ay tageen Thomas wuxuu sii waday raadintiisa wuxuuna helay qol ay ku jiraan feelasha dambiilayaasha ugu halista badan magaalada halkaas ayuu sidoo kale ku arkay fiil magaca Bob ku qoran yahay kaasoo lahaa hal bog oo calendar oo tilmaamaya taariikhda maalinta xigta taasi waxay shaki gelisay Thomas in Bob uu qorsheynayo dhacdo weyn waana sababta ay wuxuustu aad uga xiiseynayaan isaga intii Thomas uu falanqeynayay feelasha si lama filaan nin hubaysan ayaa albaabka soo garaacay isagoo u yeedhaya Bob kadib Thomas wuxuu ka baxsaday daaqada laakiin markii uu arkay laba iyo ka ciyaar dhanka kale ee xayndaabka uu naxay isla markiiba wuxuu fuulay saqafka sare si uusan qofna u arkin halka ninkii qarsoodiga ahaa ayaa qoriga ku taagay eeyaha isagoo ku amriyay inay aamusaan isla markii wadadu nadiif noqotay Thomas ayaa meesha ka baxay wuxuuna si toos ah u aaday guriga taliye Wyatt isagoona u sheegay dhammaan wixii uu soo ogaaday halkaas wuxuu uga sheegay inuu baaritaan ku sameeyo Bob sababtoo ah wuxuu aad u hubay inuu ku lug leeyahay shirqool weyn oo aad u xun oo lid ku ah Bikomonde
inkastoo uusan ogsoonayn sheekada oo dhan laakiin dhammaan calaamaduhu waxay muujinayaan in qorshihiisa uu fulin doono 24 saacadood gudahood sababtoo ah Thomas weligiisba uu ku saxnaa aragtiyihiisa sidaa darteed Wyatt uu aqbalay hadalkiisa wuxuuna diray mid ka mid ah saraakiisha Agent Eccles si uu baaritaan ugu sameeyo Bob Thomas wuu mahad celiyay kadibna wuxuu aaday saqafka kaniisadda si uu la kulmo Stormy markii meeshu banaanaatay labadoodu waxay bilaabeen inay wada hadlaan laakiin si lama filaana Bob ayaa isagoo xanaaqsan meesha yimid wuxuuna si degdeg ah ugu soo dhawaaday Thomas Stormy ayaa weydiisay maxaa meesha ka socda laakiin Thomas ayaa u sheegay inay cararto sababtoo ah Bob waxa qabsaday wuxuushta nasiib wanaag labadooduba waxay ka baxsadeen albaabka dambe iyadoo Bob uu isku dayay inuu wax walba jabiyo si uu banaanka ugu baxo labadooduna waxay ku baxsadeen mooto jidkana Thomas wuxuu wax walba u sheegay taliya Wyatt inkastoo Wyatt waqtigaas xaaskiisa waqti la qaadanayay haddana wuxuu isla markiiba diray kooxdiisa laakiin markii booliisku halkaas yimid waxay arkeen oo kaliya kaniisad burburtay meeshana kama muuqan wax raada ama faraha Bob si kastaba ha ahaatee taliyuhu wuxuu ballan qaaday inuu sii wadi doono baaritaanka si uusan habeenkooda u xumaan Thomas iyo Stormy waxay aadeen makhaayad si ay u casheeyaan ballantoodu si fiican ayay u socotay ilaa saaxiibka Thomas ee lagu magacaabo Osi oo meesha yimid isagoo u sheegay inuu keenay xirmadii uu dalbaday markuu furay boxka Thomas wuxuu arkay silsilad ay ku rakiban tahay saxan bira wuxuu u sameeyay tan nabadgelyadiisa sababtoo ah wuxuu riyadiisa ku arkay isagoo xabad lagaga dhuftay laabta kadib markii ay boxka qaateen labadooduba waxay bilaabeen inay guryahooda ku laabtaan laakiin si lama filaana Thomas ayaa mar kale dareemay wax yaab leh wuxuuna u jahaystay dhanka kubadda bowlinka tani waxay baqdin gelisay Stormy sababtoo ah waxay tani calaamad u ahayd in aragtidii Thomas ay rumoobayso Thomas wuxuu yiri shaqaalaha halkan waxay xidhaan labis cagaaran ma ahan casaan marka wax ma dhici doonaan ee hawlwelin laakiin markii labadooduba ay gudaha galeen labisku wuxuu noqday casaan isagoo ka naxsan arintan Thomas ayaa isla markiiba wacay Wyatt kaas oo halkaas u soo diray sarkaalkiisa Farner wax yar kadib Farner ayaa meesha yimid laakiin isagu muusan jeclayn Thomas mana uusan aaminsanin inuu leeyahay awood markuu bilaabay inuu su'aalo weydiiyo Thomas Stormy iyadoo isticmaalaysa quruxdeeda ayay amaantay taatooyadiisa hadda Farner isagoo aad u faraxsan ayuu bilaabay inuu tuso taatooyadiisa laakiin Stormy ayaa hadalkiisa si degdeg ah u joojisay una marmarsiyootay oo kaxaysatay Thomas labadoodubana guriga ayay aadeen laakiin Thomas weli ma helin wax caddayn dhab ah oo la taaban karo oo ku saabsan qorshaha Bob kadib Thomas wuxuu xasuustay riyadii Viola ee goobta bowlinka wuxuuna go'aansaday inuu aado gurigeeda si uu u helo macluumaad dheeraad ah markuu halkaas gaadhay wuxuu Viola weydiiyay riyadeedii Viola waxay u sheegtay inay ku aragtay midadaasan hareeraha goobta bowlinka halkaas oo dabaqii dhami uu dhiig ka buuxo xasuusinta aragtidan waxay mar kale cabsi gelisay Viola hadda iyaduna waxay dareentay inay ka mid noqon karto midadkaas markii ay aragtay nolosheeda iyo nolosha gabdhaheeda oo halis ku jira ayay argagaxday kadib Thomas wuxuu kula taliyay in gabdhaheeda qaadato oo meel kale aado iyadoo aan cidna la wadaagin Viola way aqbashay oo waxay aaday inay raadiso gabdhaha laakiin si lama filaana Thomas wuxuu arkay wuxuus kale oo soo galay guriga si uu u ilaaliyo carruurta Viola Thomas wuxuu iska dhigay sidii inuusan arkayn wuxuushta ilaa Viola iyo gabdhaheeda ay guriga si ammaan ah uga soo baxeen intaas kadib Thomas iyo Stormy waxay bilaabeen inay dib ugu noqdaan gurigooda si lama filaana wadada dhinaceeda waxaa laga maqlay qaylada qof Thomas isla markiiba wuxuu aaday inuu eego waxa dhacay wuxuu halkaas ku arkay Lesete oo ay laba eryanayaan gabadha awoodeeda oo dhan ayay ku ordaysay laakiin ayaha ayaa qabtay oo si xun u weeraray Thomas xogaa uu soo daahay isla markaas in lagu magacaabo Kevin ayaa qori la yimid oo meesha ku togtay eeyihii markuu si fiican u eegay Thomas wuxuu fahmay in eeyahan ay yihiin kuwii joogay gurigii Bob wuxuuna markiiba wacay booliiska markii ay booliisku yimaadeen Wyatt ayaa kooxdiisa ku amray inay Bob raadiyaan Kevin wuxuu u kaxaystay inuu su'aalo weydiiyo kadib wuxuu u sheegay Thomas iyo Stormy inay guryahooda aadaan laakiin intii uusan bixin Thomas wuxuu silsiladii birta ahayd siiyay Wyatt isagoo u malaynayay in sarkaalka booliiska uu uga baahi badan yahay sidaan aniguba ugu baahanahay inaad like saarto muuqaalka oo ilmaamto inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay boqolkiiba 90 daawadayaasha in halkan ku saaxiibnay channelkeena maysan subscribe garayn taasoo annaga nagu aaniyo jab waxayna saaranahay wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe haddii aynu u soo noqono muuqaalkeena Thomas ayaa Stormy u dhaweeyay gurigeeda wuxuuna ku soo laabtay qolkiisa halkaas wuxuu ku arkay qori dhulka yaala laakiin si lama filaan wuxuu meydka Bob ku arkay masqusha dhowr saacadood ka hor ayuu dhintay waxay u ekeed in si uu la kaca loogu soo riday halkan kadib Thomas wuxuu fahmay in ruuxdii Bob ay daba socotay markii uu weeraray kaniisadda taasi waa sababta aan wax faraha halkaas looga helin qofkii dilay Bobna wuxuu hadda isku dayay inuu dambiilaha ka dhigo Thomas xaaladan Thomas uu ogaa in haddii uu booliiska uu dambiile loo arki doono lana xiri doono sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu meedka maro ku daboolo oo uu qaado warshad duuga oo ku taala magaalada banaankeeda dhanka kale Wyatt oo la cuntaynaya xaaskiisa ayaa albaabka loo soo garaacay wuxuu u maleynayay inuu yahay Thomas markaas ayuu albaabka aaday si uu u furo laakiin si lama filaana nin aan la aqoon ayaa xabado dhowr ka dhuftay laabta wuxuuna ku riday dhulka kadib ninkii dambiilaha ayaa cararay xaaskii Wyatt ayaa isla markiiba wacday ambulance waqtigaas Thomas wuxuu qariyay meedkii Bob ee warshada ku jiray markii uu ogaaday weerarka lagu qaaday Wyatt wuxuu ka orday isbitaalka si uu u arkay isaga markii uu halkaas gaaray xaaskii Wyatt ayaa habsisay oo ku tiri maanta sababtaada ay nolosha ninkii ku badbaaday kadib xaaskii
Wyatt waxay tustay Thomas silsiladii birta ahayd iyadoo u sheegaysa in labada xabadood ay ku dhigeen silsilada laakiin mid kamid ayaa ka duushay haddana dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan Wyatt kadib Thomas wuxuu xaqiiqsaday in dadka mid loo dilayo oo hadda saaxiibadiis ayaa halis ku jira sidaa darteed waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u ogaadaa xiriirka kala dhaxeeya arrimahan sababtoo ah taariikhda ku qoran faylka Bob waxay ahayd isla berito taas macnaheedu waa wax walba waxay dhici doonaan isla berito hadda caawimaad la'aanta Wyatt Thomas wuxuu go'aansaday inuu isagu talaabo qaado wuxuuna ku laabtay gurigii Bob si uu u eego albaabkii qarsoodiga ahaa isla markii uu hubiyay kombiyuutarka wuxuu helay bogog badan oo ku saabsan wuxuushta iyo sixirka madow taasoo muujinaysa in Bob uu baranayay sida loo sameeyo sixirka madow lagana yaabo inay taasi tahay sababta ay wuxuushta u heleen ilaa hadda isaga waxay u adeegsanayeen qorshe weyn laakiin hadda oo uu Bob dhintay Thomas ma uusan fahmi karin waxa ay noqon doonto talaabada xigta ee wuxuushtu sidaa darteed wuxuu bilaabay inuu si fiican u baadho guriga isla markii uu furay talaagada Thomas aad ayuu u baqay wuxuu gudaha ku arkay fara iyo madax dad isla markii uu albaabka xidhayna ruuxdii Bob ayaa soo istaagtay isaga agtiisa waxay leedahay dhaawac xabad ku taala laabtiisa haddana wuxuu bilaabay inuu soo weeraro Thomas laakiin ruuxdiisu ma waxyeelayn karto Thomas haddana ruuxdaas awoodeeda waxay isticmaashay inay Thomas ku soo turto dhammaan alaabta guriga si dhib leh ayuu arrintan Thomas uga badbaaday isagoo ka booday daaqada isla markaasna Bob wuxuu furay gaaska shoolada kadib gurigii oo dhan ayaa qarxay si kastaba ha ahaatee Thomas wuxuu dareemay wax aad u yaab badan oo ku saabsan arrintan in Bob isna laga toogtay isla meeshii Wyatt xabadda lagaga dhuftay taas ayaa u cadaysay in labadooduba uu hal qof weeraray sidaa darteed wuxuu ku laabtay warshadii hore si uu mar kale u baadho meydkii Bob halkaasoo urta xun dhexdeeda ka helay tattoo lagu magacaabo Bob kaasoo ku yaala maqaarka Bob markuu tan arkay Thomas wuxuu soo xasuustay isla tattoo-gii Farner wuxuu xasuustay in Bob oo ah Princess of Darkness ay ahaayeen kooxdada oo caabuda shaydaanka Thomas wuxuu u baxay inuu raadiyo Farner laakiin markaas awoodiisa ayaa si toos ugu jiiday dhinaca suuqa weyn halka Stormy ay ka shaqeynaysay dukaanka jalaatada isagoo dareemay khatar ku wajahan saaxiibtiis Thomas isla markiiba wuxuu gudaha u galay suuqa wuxuuna qaatay bakoorada baseballka oo wadada taalay wuxuuna aaday qolka amniga markii uu gaaray qolka kantaroolka wuxuu arkay nin wajiga duubtay oo qori wata oo cararaya laakiin Thomas ayaa madaxa nabur weyn kaga dhuftay oo dhulka ku riday markii uu ka qaaday maskigii wajiga ugu xunaa wuxuu ogaaday inuu yahay agent A-class oo ay u badan tahay inuu ku lug leeyahay shirqoolka cadowgiisa isla markii uu Thomas taabtay qorigiisa wuxuu arkay aragtiyaha wixii hore u dhacay hadda wuxuu si cad u ogaaday inuu ahaa ninkii toogtay taliyaha booliiska isaguna wuxuu qorsheeyay dhammaan waxan isagoo la kaashanaya Farner iyo Bob sidoo kale waxaa la ogaaday in saddexdan ay damacsanaayeen inay weerar aad u weyn ku qaadaan magaaladan yar si ay shaydaanka uga farxiyaan xitaa ma aysan ogeyn in saddexdan dhab ahaantii ay ku shaqeynayeen rabitaanka wuxuushta kuwaasoo ujeedkooda uu kaliya yahay inay ku kulmaan dunida aadanaha oo ay dilaan dadka inta suurtagalka ah laakiin markii Thomas uu bilaabay inuu dabagala Bob sarkaalkan booliiska ayaa dilay Bob si uusan u kashifin sirtii qorshahooda laasantay nafteeda way weyday sababtoo ah waxay ahayd saaxiibtii Alex waxayna aragtay sawirada la xidhiidha weerarka sababtaas awgeed sarkaalka booliiska ayaa si adag u dhuftay ilaa ay ka suuxdo kadibna Farner ayaa u diray eeyaha Bob si ay u dhamaystiraan hadda su'aasha ugu weyn waxay ahayd xagee weerarkan ka dhici doona sidee loo joojin karaa sidaa darteed Thomas wuxuu u baxay inuu raadiyo Farner laakiin ka hor inta uusan taas samayn wuxuu go'aansaday inuu Stormy u digo isla markaas wuxuu arkay shaqaalaha goobta bowlinka oo qaarkood qado u imaanayaan suuqa isla waqtigaas Viola ayaa iyaduna meesha la timid gabdhaheeda waxay u sheegtay inay soo laabatay sababtoo ah wixii intaas ka dambeeyay waxyaab lamaysan arkin isku darka waxyaalahan oo dhan Thomas wuxuu fahmay xaqiiqo cabsi leh in weerarku hadda ka dhici doono gudaha moolka isagoo aan hal ilbiriqsi iska lumin wuxuu Viola iyo gabdhaheeda ku amray inay goobtaas iskaga tagaan wuxuuna isagu u baxay inuu raadiyo Farner laakiin si lama filaana saqafka waxaa ka furmay irid weyn kaasoo ay ka soo baxeen xayn wuxuusha oo ku faafay suuqa oo dhan si ay u arkaan weerarka dhici doona daqiiqada kadib Thomas wuxuu maqlay qaylo ay haweeney leedahay nin hubaysan ayaa qof walba weeraraya dadkii oo argagaxsan ayaa bilaabay inay u cararaan dhanka albaabka bixitaanka laakiin markaas nidaamka qolka amniga ayaa howlgalay waxaana xidhmay albaabadii oo dhan kadib nin kale oo waji xidhan ayaa qori soo saaray wuxuuna bilaabay inuu jiha kasta u rido kaasoo uu ku jiray dukaanka jalaatada ee Stormy isagoo u maleynayay inuu yahay Farner Thomas wuxuu kor u qaaday qoriga Alex wuxuuna ku orday ninka qoriga haysta qorigaas waxaa ku jiray 4 xabadood oo kaliya labadii bartilmaameed ee ugu horeeyay uu la seegay laakiin xabadii saddexaad ayaa garabka kaga dhacday ninka dhanka kale wuxuushta ayaa bilaabay inay Thomas ku soo ururaan si ay u hor istaagaan laakiin haddana muusan istaagin isla markii uu hor yimid toogtaha Thomas ayaa si toos u bartilmaameedsaday oo dilay intaas kadib wuxuu u orday dukaanka jalaatada isagoo ka fakaraya Stormy kadib wuxuu arkay Stormy oo gabi ahaanba fiican markuu arkay iyadoo bad qabta wuxuu helay xasilooni weyn laakiin markaas ruuxdii Alex ayaa hor timid sidii Benny oo kalena ma hadli karin laakiin Thomas wuxuu fahmay in waxana aanay weli dhamaanin wuxuuna aaday inuu arko ninkii wajiga xidhnaa wuxuuna noqday Kevin bedelkii uu noqon lahaa Farner kani waa isla ninkii eeyaha dilay ee maalmo ka hor soo galay guriga Bob kadib Thomas wuxuu dabagalay ruuxda Alex oo ku hagaasay dhinaca baarkinka baabuurta halkaas oo uu taagnaa baabuur weyn oo uu albaabkiisa dambe xidhnaa sidaa darteed Thomas wuxuu caawinaad weydiistay
weydiistay mid ka mid ah shaqaalaha suuqa labadooduba waxay gooyeen qafulkii iyagoo isticmaalaya miishaar waxayna fureen albaabka baabuurka halkaas oo ay ka heleen haamo shidaal iyo bombooyinka waqtiga oo dhex yaala kadibna shaqaalihii ayaa si degdeg ah isugu dayay inuu qof walba ka saaro meesha laakiin si lama filaan Farner ayaa ka hor yimid wuxuuna baastoladii ku toogtay ninkii isla markaas Thomas wuxuu u orday inuu xiro albaabka wuxuuna u cararay shirka hore ee baabuurka laakiin Farner ayaa sii waday xabadda hal xabadna way ku dhacday si kastaba ha ahaatee Thomas isagoo dhaawacmay wuxuu galay baabuurka gudihiisa wuxuuna ku waday xawaare sare isagoo ka sii fogaanaya moolka laakiin Farner ma quusan wuxuuna toogtay muraayadda hore taasoo garabka ka gashay Thomas hadda Thomas wuxuu dhiig baxayay si xawliya laakiin ma jirin waqti la lumiyo sidaa darteed gaadhiga ayuu xawaare sare iyo meel magaalada ka baxsan u kaxeeyay isla waqtigaas Farner oo hadda u maamulo wuxuushka ayaa daaqada ka soo laalaaday wuxuuna qorigiisa ku taagay Thomas laakiin Thomas tirqi ayuu ku badbaaday kadib Farner wuxuu isku dayay inuu albaabka furo oo uu gudaha galo laakiin markaas Thomas wuxuu ka booday gaadhiga xamuulka ah isagoo jidka socda Farner wuxuu isku dayay inuu joojiyo gaadhiga laakiin gaadhiga ayaa buundada ka dhacay bombaduna way qeexday oo halkaas ay ku dhinteen Farner iyo asxaabtiisu kadib Thomas uu miir daboolmay oo dhulka ku dhacay ugu dambeyntii wuxuu dadkii shacabka ahaa ka badbaadiyay dhimasho dhowr saacadood kadib ayuu miirkiisii soo noqday isagoo saaran sariir isbitaal halka Stormy aad ugu faraxday markay aragtay isagoo bad qaba wax yar kadib xaaskii Wyatt ayaa halkaas timi waxayna ku amartay kalkaalisada inay daweyso nabaradiisa kadib xaaladii Thomas si tartiib ayay u soo riisanaysay haddana wuxuu noqday halyeeyga aagan oo dhan dad ayaa isugu yimid albaabka banaankiisa kadib markii baaritaanku dhamaaday Farner Alex iyo Bob waxaa lagu eedeeyay dhimashada Elise iyo isku dayga weerarka moolka maalintii xigtay Thomas ayaa isbitaalka laga saaray wuxuuna ku noqday guriga Stormy hadda isagoo dhag jalaq u siin wax kale Thomas wuxuu kaliya doonayay inuu waqti xasloon la qaatay Stormy maalmo kadib taliya Wyatt xaaskiisa iyo Viola ayaa u yimid inay arkaan isaga waxayna ku yiraahdeen waxaad guriga Stormy joogtay maalmo badan haddana wayna aadaa gurigaaga laakiin Thomas wuxuu weydiiyay waa maxay dhibaatadu kadib Wyatt ayaa u sheegay xaqiiqo xanuun badan Thomas wuxuu kaliya ku jiray gurigan waqtigaas oo dhan dhab ahaantii Stormy waxay ku dhimatay weerarkii moolka hadda waxa kaliya ee uu arkayay waxay ahayd ruux sababtoo ah waxay ku xidhnayd Thomas kumana bixi karin dunida kale Thomas ayaa u sheegay inuu xaqiiqada ogaa isla markii uu arkay iyadoo ka kacaysa miiska laakiin diyaar uma ahayn luminta jacaylkiisa nolosheeda laakiin wali Wyatt wuxuu u sharaxay inuu ogolaado inay baxdo Stormy maxaa yeelay adduunkani hadda ma aha keedii ugu dambeyntii Thomas uu ogolaaday hadalkiisa labadooduna way ismacsalaameen waliba qaaban qurux badnayn inkastoo aan codka Stormy la maqli karin haddana waxay u muujinaysay jacaylkeeda Thomas wuxuu yiri waan ku heli doonaa mar kale si aan uga dhabeeyo ballanqaadkii ahaa inaan weligeyn wada joogno iyadoo arrintan ku faraxsanayay Stormy baxday ruuxdeeduna waxay isku bedeshay balanbaalsyo halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay waxayna ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga